waxaan kaala hadlayaa magaalada beledweyne dhexdeeda dagaalkii beledweyne shalay dusheeda ka dhacay annaga waxba naguma soo gaarin laakiin dagaalkaas qayb baad ka ahayd soo maaha qayb baan ka ahaa markaa bal guddoomiyaha gobolka hiiraan oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in ciidamadooda oo dagaal ugu socda shabaab aad dhexda u gasheen arrintaa maxaa ka jira arrintaas waa been waaye annaga al-shabaab maahin dad kacdoona oo xaqooda raadsanayo ayaanu nahay weligeenna intaasaan ka hadli jirnay wax nalala hadla iyo wax nala heshiiye midna waa weyn hadday federaalka tahay iyo hadday cid kasta tahaba genaraal bal iminka muddo ayaad duurka ku jirtaa oo aad ciidamo urursanaysaa dhowr jeerna dagaalni dhex marayaa maamulkii deegaanka ka jiray bal markaa hadafka aad u dagaalamaysahay muxuu yahay hadafka waxa waaye walaalow markaan runta kuu sheego annaga waxaana la yidhaha hiiraan laakiin soo hiiraan maamul ma laho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ma leh idinku hiiraanta aad sheeganaysaa waa waxaas madax ma aha waxaas waa qaadacnay annaga hirshabeelle haye markaa bal maxaa u qaadacdeen waxaan ku qaadacnay maadaama hiiraan magac jiray oo awowa magac jireen oo ahaa in lagu bedelo hir macquul ma aha qofka magaca loo yaqaano waa inuu ku golo tagaa magacaan cid bedeshay iyo si loo bedelay midna ma naqaan mooryaanaa heshay taasaan ka dagaalsannahay waa kow marka labaad annaga waxaan u soconnaa hiiraan state inaan dhisano ee uma soconno inaan hirshabeelle wax ku dirsano marka hadalka lasoo ururiyo idinku maamulka ma diidanidin ee magaca maamulku la baxay baa diidantiin miya maamul ma ka jiro hiiraan hirshabeelle la yidhaahdo waxa dhacay oo dhan waxay dhacayaan waa intaas sida dowladda federaalka qasabka iyo duduubka ay ku dhisatay si aan aqbali karno oo aan yeeli karno maaha annaga hiiraan baa nala yidhaahdaa magacaan aan leenahay gobolkan waa gobol caana waa gobolladii kale ka haray xagdarada intaas la-eg oo nalagu sameeyey ayaan ka dhiidinay oo aan diidannahay markaa bal markaaad caddayso hirshabeelle maamulka jira halkee dheeligu kaga jira ayaad waad diidan tahay bataatanba hirshabeelle nala kuma soo qaadi kara annaga magacaas xaaraanuu ka yaagteen haba isku daalina igala hadasho laakiin marka loo eego habka maamulka soomaaliya ku dhisan yahay waa hab lagu qaybsaday beelo adigu maamulkaasaad ku abtirsataa oo beeshaadu hoos tagtaa oo xubno beeshaada ay kugu matalaan marka keligaa inaad adigu gaar uga baxdaa soo sawir kale kaa bixin mayso maamulkan waa maamul loo dhistay in madaxweynenimo lagu gaaro dadaana dhistay kuwa aad sheegaysid hadda ayaga waxba ma dhisan oo aad leedaha madaxay ka yihin meesha ee waa dad meesha la keensaday oo wax lagu maamulo marka annagana ma ahayn dadka saas markaad annaga leedahay ayaad isku daraysa aan adiga ahayn annaga markaan leenaha waa reer hiiraan reer hiiraan way badan yihiin maxaa ka wadaa reer hiiraan hiiraanka dhalaska ah ee ku dhashay beledweyne marka hadalkaagu qaab kuu dhacayo loo eego waxaad leedahay beel baan matala deegaankaa degta soo maa oo aad xaqeedii raadinaysaa deegaanka xaqiisaa la raadinayaa deegaanka xaq badan baa ka maqan haddii dadka deegaanka nala degan ay yihiin oo aan u dhalan deegaanka ayaa maalin walba madaxtinimadii deegaanka qaata ama kismaayo ka yimid ama baydhabo ka yimid dadka halkaan u dhashana xaqooda ma helaan laakiin dadka halkaan u dhashay goormay adiga kuu xusha inaad xaqooda u raadiso waa isku raacsan yihiin kulli waa sharagnay waa ka wada hadalnay marka waxaa ka wada hadasha inay kuu gartaan inaad tahay qofka xaqooda baadi goobaya kuwa biiriqaatayaasha ah ma ka hadlayno dadka rasmiga oo wadaniga ah ee qadiyadda hiiraan ay ku weyntaan ka hadlaynaa oo reer hiiraanka ah markaa bal muddo badan baad xaqan iyo hawshan aad sheeganayso aad u dagaalamaysa imika oo dhulkaasna inta badan deegaamadiisa miyiga oo la sheego inay tahay halka aad ku sugan tahay al-shabaab ayaa joogto oo ka talisa miyaa jira xidhiid ka dhexeeya idinkii al-shabaab war annaga al-shabaab maahin annaga dad la yaqaanaan nahay qaranka soomaaliya u soo shaqeeyey oo intaas soo taagnaa oo waxbartay ayaynu nahay al-shabaab ma ahin kuwa nagu eedaynayo waa kuwa aan la diidannahay beentooda iyo nimanka gobolkan aad aragtay 30 sano hoos u dhigayay maalin walba waxaa la keenayaa nin jaahila nin cilmi leh aqoon leh dadnimo leh oo reer hiiraana gobolka lama keeno marka dadka noocaas oo kale ah in laga saaro meesha oo dad aqoona la keeno horumar gaadhsiiyo gobolka iyo deegaanka dadka degan weeye waxaan annaga u ordaynaa al-shabaab maahin mana noqon doono laakiin genaraale sida aad sheeganayso qof waxbartay baad tahay dadkuna waxay kugu eedeynayaan in habkan aad wax ku raadinaysaa uu yahay hab hogaamiye kooxeednimo iyo fawdaa sawtaasi markaa sidan aad waxu wadda kama muuqato maya habkan hogaamiye kooxeed ma aha habkan waa hab kacdoon waay si cilmiyeysana wax lagu wadaa halkanuu soo jiray dhibaato lama samaynayn annaga dad ma dilno mudaaharaadyaan samaynaa mudaaharaadyadaasaan dadka ku erinaa mudaaharaadyadaas ayaa waxay keenaan in aan gacan siino mudaaharaadyadii oon gadaal istaagno oo aan lagu dayin in la dilo dadkii in loo hanjabo in qasab lagu dito haddana ayagaana soo aaday iyo dagaal hore aga dhacay magaalada beledweyne waxaa sharaf ii ah in aan maanta magaaladii gacanta ku hayo magaalada aan dhex joogo ummaddaydana waa ogtahay inaan al-shabaab ahayn adinkana waa ogtihiin laakiin soomaaliya waxaa looga bartay beentaasna raalli kama nihin annaga